Assalaamu calaykum. Ma ogtahay in noloshu mar walba isbedelayso, xitaa haddii aynan rabin isbedelkaas? Su-aasha ugu weyn waa, adigu sidee uga falcelisaa isbedelka? Buugga Who Moved Magies ee uu qoray Spencer Johnson wuxuu noo sheegayaa sheeko fudud oo xiiso leh, balse qoto dheer oo casharo badani ka buuxaan. Soo dhawaada saaxiibayaal, ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad na soo booqato, nagu soo biir muuqaalkan like garee. Waxaa jiray 4 dabacadood oo meel wada degan, 2 jiir, Sniff iyo Scurry, iyo 2 qof oo yar cabir ahaan u eg Hem iyo How. Dhammaantood waxay ku noolaayeen Lamberith, tuulo shabakad u eg. Halkaa waxay ku heleen jiis badan, kaasoo astaan u ah waxyaabaha aan nolosha ka rabno: shaqo wanaagsan, lacag, caafimaad, jacayl ama farxad. Waxay ku ganacsanayaan farmaajadan, laakiin maalin lama filaan ah farmaajadii waa ay dhammaatay. Sniff wuxuu dareemay isbedelka hore, wuxuu uriyay in farmaajadu sii yaraanayso. Scurry isna si dhaqso ah ayuu uga baxay raadinta farmaajo cusub, laakiin Hem iyo How waxay diideen xaqiiqada. Hem wuxuu yidhi, farmaajadeeni waa la qaadi waayey, tani waa cadaalad daro. How wuxuu ka cabsaday inuu guuro, isagoo ka fikiraya maxaa dhacaya haddii aan meel kale waxba ka waayo. Ugu dambeyntii How wuu isbedelay. Wuxuu ogaaday in haddii aad iska qabato cabsi, waxaad heli kartaa fursado cusub. Ma jiro wax weligiis jira, farmaajadu mar bay dhammaanaysaa. How wuxuu ku qoray derbiyada waddooyinka sida, haddii aadan isbedel la qabsan waad baaba'aysaa. Marka aad ka tagto waxa ku celiya, waad heshaa wax kaa farxiya. Ugu dambeyntii wuxuu helay farmaajo cusub badan oo ka dhadhan fiican kii hore. Isbedelku waa lama huraan. Nolol, shaqo, xiriir kasta waa isbedelaa. Ogow calaamadaha hore, sida Sniff oo dareemay in farmaajadu ay sii yaraanayso. Ha ku xayirmin meel raaxo ah sida Hem oo diiday inuu guuro. Qaad tallaabo sida Scurry oo aan ka fikirin, balse isla markiiba dhaqaaqay. Xasuusnow, farxad iyo fursad waxay ku jiraan bannaanka cabsidaada. Marka saaxiib, isweydii, yaa sabab u noqday isbedelka ku dhacay noloshayda? Waa su'aal nolosha oo dhan qusaysa. Haddii aad barato inaad si dhaqso ah ula qabsato isbedelka, waxaad noqon doontaa mid guulaysta. Ha sugin farmaajadii hore, baro inaad raadiso farmaajo cusub.